الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan maanta ka hadlaynaa mawduuc la xiriira mawduucii kan xigay oo ah qaybta 22aad oo aynu kaga hadalnay maskax badni dareemeed. waxaa ka mid ah dareemahaas carada. marka maanta waxaan ka hadlaynaa maareynta carada, sida carada qofku uu u maareyn karo. carab maxay tahay? carab waxay tahay qofka oo dhiiggiisu uu magaranaysaa wadnihiisu aada u shaqeeyo oo markaa dhiiggiisu uu magaranaysaa karo oo markaas raba inuu aarsado. caroo dhan miyay xun tahay? maya, caroo dhan ma wada xuma. carooyin waxaa jira la ogol yahay oo magaranaysa haddii ilaahay diintiisa loo gafo, haddii adiga magaranaysaa wax xun oo lagu duleysanayo, haddii mar kasta ma wada xuma caradu. laakiin si kasta ay noqotaba caradii waxaa lagaa doonayaa inaadan xadkeedii aadan dhaafin. yaa badanaaba laga caroodaa, badanaa waxaa laga caroodaa qof wax la yeeli karo. qof aadan waxba yeeli karin kama caroonaysid. tusaale ahaan, haddii tuug qori wata kaa soo horbaxo oo qorigii madaxa kaaga qabto lacagii sii ku yiraahdo, badanaa uma badna inaad carootid, inaad isdhaqaajisid xataa lagama yaabo. maxaa yeelay waxaad ka baqaysaa waxba ma yeeli kartid isaga. dhibaatooyinka caradu ay leedahay maxaa ka mid a? waxaa ka mid a dadka carada badan oo aada iyo aada u xanaaqa, dad dhaqankooda xun, saaxiibo badan ma yeeshaan. maxaa yeelay wixii laba kelmadood wuu caroonaya, marka lalamaba joogi karaba. tan kale caradu dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid a iyadoo cudurro badan ay ka dhashaan, sida wadna xanuunka, macaanka ama sankarowga, muxuu ahaa cirid xanuunka, haraga oo ku xanuuna, calool xanuunka, dhabar xanuunka iyo wixii lamid a. cuduradaas oo dhan waxaa la ogaaday caradu inay ku leedahay qeyb weyn. sidoo kale ceebaheeda waxaa ka mid a diintaadii baa dhaawacmaysa. maadaama aad wax walba ka caroonaysid, waxaa laga yaabaa inaadan ajar badan helin, leanna waan arki doonaa diintu say uga hadashay muxuu ahaa carada. islaamku muxuu ka yiri carada? islaamku wax badan buu ka yiri, laakiin waxaan soo koobaynaa in ka mid ah. awalan ilaahay wuxuu ammaanay dadka markay caroodaan dadka cafiya. wuxuu kaloo ilaahay ammaanay dadka caradooda caburiya oo ajar badan baa loo sheegay. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa yidhi ila dardaaran, 3 mar buu wuxuu ugu celiyey ha caroonin, ha caroonin, ha caroonin. sidoo kale wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, ma aha ninka legdinta badan oo xooga badan midka dadka legda, ee waa midka markuu caroodo caradiisa kontaroola oo xakameeya. sidoo kale diinteena waxayna fartay oo nebiguna faray in qofku hadduu caroodo uu yihahdo acuudu billahi min ashaytaan arajiim. sidoo kale diintu waxay sheegtay in la aamuso oo aadan war kaa soo bixin. sidoo kale markaa caraysan tahay waxaa la rabaa haddaad taagan tahay inaad fadhiisatid, haddaad fadhididna inaad seexatid. bal waxaad ka warantaa nin gurigiisa intuu soo galay xaaskiisii la diriray oo seexday haddana. waa xiyaab leh, laakiin taasaa lagu leeyahay seexo, jiifso. mideeda kale waxay diintuna fartay in la weesaysto marka la caraysan yahay. maxaa yeele caradu waa min ashaytaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. biyahana lagu qaboojin karaa, maxaa yeele shaydaanka naar baa laga abuuray. sidoo kale waxaa la ogaaday siyaalo kale oo loola tacaali karo iyadan carada, oo lagu ogaaday ummaddu nolosha muddadii ay nooleed ay ogaatay. waxaa ka mid ah inaad baartid sababta carada kugu wacan. waxaa laga yaabaa wax jira inay yihiin oo jirkaagu dhibsanayo inaad la caroonaysid, marka haysilowsiinin. tan labaad, si gun dheer u neefso markaad carootid. intaad oxygen badan qaadatid oo feerahaaga buuxisid, markaa soo daa. marka madaxaagii iyo maskaxdaadii dhiig badan bay qaadanayaa, jirkaagiina wuu degayaa. sidoo kale waxyaalaha carada yareeya waxaa ka mid ah sporti inaad cayaartid, jimicsi. sidoo kale waxaa carada lagaga hortagaa inaad qofkii aad ka caroonaysay aad dhab ahaan ula hadashid oo tiraahdid war maxaa waxaas u samaysay. waxaa laga yaabaa inuu warkiisu macquul noqdo ama uusan waxaad ka caroonaysay ayanba jirinba. sidoo kale carada waxyaalaha lagaga hortago waxaa ka mid ah dadkaad ka caroonaysid ka dheerow. dad had iyo jeer waxaa jira ku xumaynaya, ku caynaya, kaftan baasoon macno lahayn, kuwaas hala fariisanin.
sidoo kale waxaa carada lagaga hortagaa cunno isu miisaaman inaad cuntid. jirkaaga markay cunadu ku yaraato oo nafaqadu ku yaraato inaad cara badnaatid baa laga yaabaa. sidoo kale hurdo kugu filanna inaad seexatid. sidoo kale waxaa la ogaaday in carada markaad carootid 20 second ama thaniye oo ugu horeysa oo carada ku xigta inaad iscelisid, afkaaga dhowrtid, gacmahaaga dhowrtid, wax walba dhowrtid. taas waxay keenaysaa 20 second ka bacdi jirkaagi waa qaboobaya, caqligii baa kuu soo degaya. oo inagii niri caradu waa waali yar. waxaa kaloo la sheegaa inay caradu leedahay 6 marxalo. cilmi nafsiga dadka barta waxay leedahay 6 qaybood bay leedahay caradu. midda koowaad qofku waa xumaanaya, midda labaad waa caroonaya, midda saddexaad aad buu usii caroonaya, midda afraad gacan buu geysanaya ama waa caytamaya ama waxbuu tuuraya. midda ku xigtana waxaa weeye waxay yidhahdeen tashwiish bay yidhaahdaanoo maskaxdiisii baa qasmaysa oo mar maxaan sameeyey, war waxaan ma fiican bay ahaayeen, caqligii baa soo noqday. tan lixaadna cudur daarashuu gelaya. tusaale ahaan waxaad u timi gurigaagii xaaskaagii, markaasay hadalla xunxun kugu tiri, ama saaxiibka ama qofa istaqaanin ama qofaa wada shaqaysaan, hadalla ku dhibayo xun buu kugu yiri. haddaa ugu jawaabtid hadalladii maxaa dhacaya? waxaad ku haynaysaa darajadii afraad ilaa 5 tashwiishku iman lahaa. laakiin haddaad tiraahdid bal iikaadii aan 2 ragca tukade, bal hadhow bayna arrintaa ka wada hadli doonaa, darajadii 5aad buu gelayaa qofku, tashwiish buu gelayaa, iga raalliho inuu ku yiraahdo ayay u badan tahay. gunaanad iyo war dardaaran. walaal daawade, ogow nafsadaadu waa sidii ilmaha oo kale. ilmaha yar wixii la baro ayuu ku weynaanaya. haddii ilmaha yar naaska hooyadiisa inka goyn 5 sano isagoo gaaray oo naaskii nuugaya baad arkaysa. marka nafsadaada adigaa bari kara xakamayn, waana go-aan adigu aad gaaraysid, inaan lagaa caraysiin karin oo adigu waxaad rabtid kaliya aad u carootid. tan labaad, xusuusnow ilaahay subxaanahu watacaala weyn ayaa ku daawanaya. marka siuu ilaahay kaaga xoog wen yahay ogow qofkaad u caroonaysid inuu ilaahay kaaga xoog wen yahay, wax ku yeeli karo iyo si ka weyn, oo qofkaas miskiinka ah ilaah kabiir ah uu kuu jeedo. marka caradaadii waa inay koobnaataa. sidoo kale ogow ajarka ay leedahay marka caradaadii aada yaraysid. tan labaad, markaad caraysan tahay waxba ha xukumin, hana gaarin go-aano waaweyn oo uu ka mid yahay furniin iyo magaranaysa dilid iyo muxuu aha waxyeelid iyo wax noocaas oo kale ah. xataa dad qaadi haddaad tahay adoo caraysan maaha inaad wax kala xukuntid. sidoo kale waxaad samaynaysaa daawade, iska tuur waxa dad waxyeeli kara ama wax dili kara ama dhaawici kara, sida qori, mindi, muxuu ahaa bir, muxuu ahaa ul, bur, waxyaalahaas oo dhan iska fogey. maxaa yeelay caradu waa waali baynu hadda ka hor niri waali yar. sidoo kale ha habaarin caruurtaada markaad inaad tacarootid, hataa habaarka iska ilaali, leanna nabigu waa ka digay calayhi salaatu wassalaam. dadka kalena ha lacnadin, hana habaarin. hadday dhacdo inaad carootid oo wax khaladid, markii maskaxdaadu degto, maskaxdii kuu soo noqoto, inaad isku day inaad wixii saxdid, qofkaad u gaftay, qofkaa wax yeeshay, inaad hagaajisid, waxna ka baro, taasoo mar dambe yeeyan dhicin inaad ku noqotid khaladkii isaga ahaa. caradu marka wala waa wax saa u xun, inaad yaraysatid caradaada oo xakamaysid wakti walba iyo qof walba aad la dhaqmaysid isku day. inta ayaan kusoo koobaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam.